مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوق. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kulanti wacan waa xalaqadii shanaad ee silsiladii siiradii nabiga calayhi salaatu wassalaam waxaan soo gaarnay usradii nabiga calayhi salaatu wassalaam al-usra al-haashimiya qolada nabiga calayhi salaatu wassalaam ka dhashay oo reer bani haashim la yiraahdo waxa ay ku abtirsadaan nin la oran jiray haashim ibnu cabdi manaaf ninkaa marka haashim wuxuu ka mid ahaa ashraaftii reer maka wuxuuna qaabilsanaa asiqaaya warifaada xujayda quudintooda iyo waraabintooda ayuu qaabilsanaa macnaha diyaafadooda iyo maaragtay martisoorkooda ayuu qaabilsanaa waxayna ahayd sharaf weyn oo maaragtay lagu dagaalamo oo loo kala maaragtay tarsamo oo in xataa saan loo kala qaybsado macaarig iyo isqabsi badan ayaa ka horeeyey oo kadib lagu heshiiyey in sharaftii la kala qaybsado oo mas-uuliyaadkii la kala qaato haashim wuxuu dhalay 4 wiil iyo 5 gabdhood wiilashiisa waxaa ka mid ahaa cabdilmutalib oo nabiga calayhi salaatu wasalaam awowgiis ah cabdilmutalib wuxuu ku dhashay yathrib maka kuma una dhalanin haashim ayaa safaradiisa safar ka mid ah ayuu wuxuu sii maray maaragtay yathrib meeshuu marka wuxuu ka guursaday islaan la oran jiray salma bintu camr meeshuu marka ku aqalgalay xoogaayuu joogay islaantii uur u leh ayuu maaragtay safarkiisii hore usii aaday ee shaam marka ganacsigiisii intuu kusii guda jiray ayuu shaam ku geeriyooday islaantii marka way dhashay wiil bay u dhashay wiilkii marka waxay u bixisay shaybah ayay u bixisay oo xoogaa yaroo cero yar oo madaxiisa ay ku aragtay darteed ayay shayba ugu bixisay marka wayna dhacdaa qof yaroo maaragtay ilmo yar in xoogaa madaxiisa
cira lagu arko. marka meeshii ku barbaaray ilaa uu 7 sano gaaray. adeerkiis oo la oran jiray Muttalib ibn Cabdi Manaaf la dhashay Hashim ayaa ka soo waday Yathrib oo yiri maaragtay wiilkan waa inuu maaragtay walaalihiis iyo adeeradiis la koraa, marka makan geenayaa yiri. marka soo 7 jir ah markii uu maka soo galayay bay dadku waxay arkeen Muttalib oo wiil yar wata. waxay u qaateen marka inuu adoon soo iibsaday. waxay yiraahdeen Muttalib adoon buu soo iibsaday, marka wiilkiina waxay ugu yeereen Cabdul Muttalib, Muttalib adoonkiisi. marka si kasto isugu dayo Muttalib inuu yiraahdo wiilkan adoon aan soo iibsaday maahane, waa maaragtay wiilkeygii, waa wiilkii Hashim uu dhalay, waa wiilka adeer baan u ahay. dadkii magacii baa ku dhagay maskaxdooda oo maaragtay sidii baa marka Cabdul Muttalib loogu baxshay. Cabdul Muttalib marka wuxuu ahaa nin aad u sharaf badan, magac iyo qiimo iyo makaano ku leh reer Maka. markii uu weynaaday wuxuu noqday maaragtay ninkii reer Maka dhanba mas'uulka u ahaa oo maaragtay ay ka wada dambeeyeen ayuu noqday. Maka kaliya ma ahane carabta oo dhan wuxuu ahaa nin laga yaqaano oo aad loo qadariyo u ahaa. waxaa la sheegaa inuu yahay ninkii maaragtay dib u qoday ceelkii Zamzam markii uu maaragtay la duugay kadib. waxaan hore usoo sheegnay qoladii Jurhum la dhihi jiray ee Maka ka talin jirtay in maaragtay markii laga saarayay Maka oo reer Khuzaaca ay ka saarayeen in ay ceelkii Zamzam ay duugeen. dadkiina ay u garan waayeen meesha uu maaragtay ku aadan yahay ceelka. dhulka dhanna ma wada qodi karaan. marka waxaa la sheegaa in Cabdul Muttalib riya maaragtay lagu tusay meesha iyo calaamadaha uu ku garan lahaa sidii marka uu dib ugu qoday. wallahu aclam. wuxuuna ahaa ninkii maaragtay la kulmay Abraha al-Ashram, ninkii la kulmay maaragtay la niqaashay ayuu ahaa. wuxuuna kala hadlay geel asaga laga dhacay Cabdul Muttalib oo 200 geela laga dhacay ayuu maaragtay kala hadlay. weliba ka xanaaqay Abraha uu leeyahay maaragtay arrintan aan u imid oo aan Kacbada dumiya maxaad igala hadli weyso geelkan aad igala hadlaysan, nin qiimo leh ayaan ku haystay ayuu yiri. marka arrinta Cabdul Muttalib sameeyay arrin istiraatiiji aad u cajiib badan ahayd. Cabdul Muttalib ma ahayn inuu ka sabri waayay geeliisa, laakiin waxay ahayd xarb nafsiya ama niyad jabin lagu sameynayo Abraha oo la dareensiinayo reer Maka inaysan walwal ku haynin inuu Abraha maaragtay Kacbada dumin karo, inaysan walwal ku haynin. haddii aysan ayaga hadda awoodin inay ciidan isku dubaridaan oo maaragtay ku filan in Abraha waajaho oo dagaal la galo, maadaama hadda aysan awoodin, waxay ku kalsoon yihiin in Ilaahay subxaanahu watacaala gurigan uu gurigiisi yahay, asagana Ilaahay subxaanahu watacaala uu ka difaacayo cid kastoo guriga dhib la doonto. saas inay maaragtay yaqiinsan yihiin. marka aysan arin yani hadda xisaabaadkooda ku jirta inaysan ahayn ayuu maaragtay dareensiinaya Abraha. inkastoo Abraha iskibirsiinayo uu yiri maaragtay waxba cid iga celin karta ma leh, laakiin cabsida waa uu dareemay oo maaragtay hadalkaasi hadal istiraatiiji ah ayuu ahaa. macnaha Cabdul Muttalib wuxuu Ilaahay siiyey 10 wiil iyo 6 gabdhood. wiilasha marka waxaa ka mid ahaa Cabdullaahi oo nabiga calayhi salaatu wasalaam aabihiis ah. adeeradiisna waxaa maaragtay nebinimada soo gaaray 4 ayaa soo gaartay nebinimada oo maaragtay kala ah Cabbaas ibn Cabdul Muttalib iyo Xamza ibn Cabdul Muttalib radiyallahu canhuma. labadooda waa islaameen. Xamzana waa maaragtay sayidu shuhadaa, wuxuu ku shahiiday dagaalkii Uxud. Cabbaasna maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka dambeeyey geeri ahaan. labada kalena waa Abu Taalib iyo Abu Lahab. marka labadoodu ma aynan islaamin, laakiin Abu Taalib wuxuu ahaa maaragtay garab iyo maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam aad buu u taageeri jiray, uu maaragtay uga difaaci jiray gaalada. Abu Lahabna wuxuu ahaa nin aad u dhibaateeya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam meel kasta u istaaga oo dhib kala hor imaada. Cabdullaahi oo ah nabiga calayhi salaatu wasalaam aabihii wuxuu guursaday islaan la oran jiray Aaminah bintu Wahab. haweeneydaas waxay ka dhalatay qolo la yiraahdo Bani Zuhra, waana qolada uu ka dhashay saxaabiga Sacd ibn Abi Waqqaas radiyallahu canhu ayuu maaragtay ay isku maaragtay reer yihiin. saasoo marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray Sacad abtigay buu dhihi jiray. marka labadooda marka waxay wada ahaayeen Bani Zuhra, macnaha Sacd iyo nabiga hooyadiis Aaminah bintu Wahab. Cabdullaahi wuxuu ku dhintay safaradii ganacsiga uu aadi jiray mid ka mid ah ayuu wadada ku dhintay, eriyada Yathrib ayuu ku dhintay. marka
waxaana la sheegaa macnaha riwaayaadku badankooda ay sheegayaan in uu dhintay nabiga calayhi salaatu wasalaam intuusan dhalanin wax yar ka hor ayaa maaragtay riwaayaadka kuwooda ugu xoogan ay sheegayaan. waxaa jira riwaayaad kale oo sheegaya in markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam dhashay wax yar kadib inuu dhintay. marka wax saas u kala fog maahan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam agoonnimo ayuu maaragtay ku soo koray. marka sida raajixana waxaa waaye in asagoo agoona uu dhashay macnaha aabihiis inuusan ifka ku soo gaarin. cabdullaahi marka hanti badan kama unan tegin oo waxa uu ka tegay dhanba waxaa la yidhahdaa inay ahaayeen 5 neef oo geela iyo wax yaroo ari ah iyo islaan maaragtay addoon ahayd oo maxay ahayd xabashiyeed ahayd oo la dhihi jiray baraka ummu ayman. islaantaas oo marka nabiga calayhi salaatu wasalaam xanaaneyn jirtay markii uu dhashay. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhashay sanadkii maroodiga caamul fiil, waa sanadkii uu maaragtay abrahat al ashram kusoo duulay magaalada maka si uu kacbada u dumiyo. wuxuu ka dhashay sanadkaas bisha rabiicul awal, bishaas ayuu dhashay. maalinta uu bishaas ka dhashay waa laisku khilaafaa. marka waxaa aad mashhuur u ah in maalinka 12aad inuu dhashay, laakiin maalmo kale ayagana waa la sheegaa. laakiin waxaa laisku waafaqsan yahay inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam dhashay maalin isniin ah ayaa laisku waafaqsan yahay, sida ku soo aroortay xadiidka saxiixa ah oo nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey sababta uu u soomo maalinka isniinta iyo maalinka khamiista. maalinka isniinta waxyaalaha uu ku cileeyey waxaa ka mid ahayd inuu yiri daalika yowmun aw daaka yowmun wulidtu fiihi, maalinkaa waa maalinkii aan dhashay buu yiri maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka maalin isniin ah bisha rabiicul awal ayuu maaragtay dhashtay nabiga calayhi salaatu wasalaam, waxaana mashhuur ah maalinka 12aad sida aan soo sheegnay. nabiga abtirsiimihiisa haddaan u imaanno waa abulqaasim muxamed ibnu cabdillaahi ibnu cabdilmutalib. abulqaasim marka la leeyahay macnaha waxaa loogu magac darayaa wiilashiisa wiilka ugu weyn oo qaasim la dhihi jiray ayaa loogu magac darayaa macnaha. taana waxaa la yidhahdaa kunya oo dhaqanka carabta ka mid ahayd ilaa yowmina haadaana ka mid ah. abulqaasim muxamed ibnu cabdillaahi ibnu cabdilmutalib ibnu haashim ibnu cabdi manaaf ibnu qusay ibnu kilaab. qusay ibnu kilaabna wuxuu ahaa nin maaragtay ashraaftii maka ka mid ah, wuxuuna ahaa ninkii maaragtay reer quraysh gaar ahaan iyo reer bani ismaaciil guud ahaanba maaragtay u soo celiyey awooddoodii iyo heybadoodii oo maaragtay khusaaca ka saaray maka. khusaaca ayaa maka haysatay oo hore aan uga soo sheekeynay inay qabsadeen. marka ninkii maaragtay awoodda iyo maamulka khusaaca kala soo wareegay ayuu ahaa qusay ibnu kilaab. qusay ibnu kilaab ibnu murata ibnu kacab ibnu lu'ay ibnu ghaalib ibnu fihr ibni maalik. fihr ibnu maalikna waa ninka ay qurashiyiintu ku abtirsadaan, asaga ayaa quraysh la dhihi jiray. fihr ibni maalik ibni nadr ibni kinaana ibni khusaymata ibni mudrikata ibni ilyaas ibni mudar ibni nizaar ibni macad ibni cadnaan. marka cadnaan la soo gaaro ilaa intaa marka dadka maaragtay ansaabta yaqaana waa isku waafaqsan yihiin, laakiin waxay cadnaan ka dambeeya waa maxalu khilaaf. marka tirada odayaasha ku jira cadnaan ilaa ismaaciil waa la isku khilaafsan yahay, magacyadoodana waa la isku khilaafsan yahay. marka meeshaasaan isaga ekeenaynaa haddii ilaah yiraahdo. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay anaa dacwatu ibraahim wa kaana aakhiru man bashara bii ciisa bnu maryam. anigu waxaan ahay buu leeyahay ducadii nebi ibraahim baan ahay, ducadii nebi ibraahim aqbalkeedii ayaan ahay. qofkii ugu dambeeyey ee dadka ugu bishaareeyey imaanshahayga iyo inuu nebigan soo bixi doono na wuxuu ahaa nebi ciise calayhi salaam. marka ducadii nebi ibraahim waxay ahayd qur-aanka bay ku soo aroortay inuu ilaahay subxaana watacaala weydiistay uu yidhi rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatika wayucallimuhum alkitaaba walxikmata wayuzakiihim inaka anta alcasiizu alxakiim ayuu maaragtay ku duceeyey. ducadaa marka aqbalkeedii weye nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. nebiyadii horena way dadku way ugu bishaareyn jireen nebi maxamed calayhi salatu wasalaam imaanshihiis. marka waxaana ugu dambeeyey oo dadka ugu bishaareeyey nebi ciise
وإلهي نغور بالقرآن كأنه يري ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أحمد مقاعد النبي عليه الصلاة والسلام أيو كمدها markuu dhashay awowgiis oo cabdilmutalib ahaa ayaa soo qaaday maadaama aabihii uusan nooleen. isagaa marka wuxuu la soo galay kacbada, kadibna wuxuu u baxshay muxamed ayuu u baxshay. magaca marka aanan aad loo isticmaalin ayuu ahaa magaca muxamed. bitabiicati alxaal qofkii ugu horeeyey oo nuujiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadiis ayay ahayd oo maaragtay nuujisay. kadibna waxaa nuujisay islaan la oran jiray thuwayba al aslamiya oo maaragtay mawlaad abilahab ahayd ayaa nuujisay. waxay kaloo hore u nuujisay islaantaasi xamza ibnu cabdilmutalib radia allahu canhu nabiga adeerkiis ah, iyo abu salama radia allahu canhu isagana saxaabada ka mid ahaa ayay nuujisay. sidaasay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xamza iyo abu salama radia allahu canhuma ay walaalo ku noqonayaan dhanka nuujinta, ikhwa fi radaaca ay ku noqonayaan macnaha. marka caadada carabta waxay ahayd in maaragtay ilmaha magaalooyinka ku dhasha in baadiyaha la geeyo oo halkaa lagu soo nuujiyo ilaa 2 sano maaragtay meesha ay kusoo gaaraan, mararka qaarkiis ilaa 4 sano. asbaab kala duwan ayaa lagu taxliiliyaa arrintaa macnaha ay samayn jireen carabtii. waxaa ka mid ah midda ugu horeyso asbab caafimaad, maadaama magaalooyinka ay yihiin meel ay cagta ay ku badan tahay oo dadku maaragtay meelo kala duwan ay ka imaanayaan, ganacsiyo, makayda cibaado iyo xajki baa loo imaan jiray. marka xanuunadii ayaa ku badan oo maaragtay cudurro kala duwan ay dadku la imaanayaan. marka ilmaha markaa dhashay uma adkeysan karo. marka baadiyahaas macnaha inuu kusoo koro jawi maaragtay degan, hawo nadiif ah, maaragtay maxay ahayd dadku uusan ku badnayn, macnaha jawigaas ayay u doori jireen ilmaha. sababta labaad waxaa lagu sheegaa inay tahay luqadda, in maaragtay ilmihii ay luqad fiican bartaan oo fasiix ah. marka magaalooyinka luqadda lagu hadlay maaha luqad 100% fasiix ah, maadaama dad kala duwan ay imaanayaan, lahajaad kala duwan, dhawaaqyo kala duwan ayay la imaanayaan. wixii marka qofkii luqadiisa dhexgalaysa, khaasatan ilmihii yaraa meesha kusoo korayay, marka si uu marka carabkiisa luqadda saxan ee asalka ah ula qabsado marka hore uu maaragtay nolosha ay ku cusub tahay, ayaa waxaa loo geyn jiray baadiyaha. marka dadka baadiyaha ku nool maadaama ikhtilaad kale aysan sameynin oo dad kale aysan saas u dhexgelin, luqadoodii waa luqadii asalka ahayd oo maaragtay fasiixa ahayd macnaha ay ku hadlayaan. tiiba marka ilmihii ka baranaya. waxaa kaloo ka mid ah inay maaragtay ilmuhu kusoo adkaadaan noloshaas baadiyaha ah oo mas-uuliyaadku ay badan yihiin, waajibaadku ay badan yihiin, inay ilmuhu kusoo adkaadaan ayaa iyadana ka mid ah ahdaafta macnaha ilmaha loo geynayay meesha. islaamaha marka baadiyaha ka imaanaya caadi u ahayd magaalooyinka imaan jireen, waxay raadin jireen marka ilmaha markaa dhashay oo ay qaataan oo ay halka kusoo nuujiyaan. qolo marka reer bani sacad ah baa yimid oo maaragtay isla socday magaaladii markay yimaadeen meeshii marka wax ka raadiyeen. waxaa ka mid ahayd islaan la oran jiray xaliima bintu abi duayb oo xaliima sacdiya ku canbaxday reer bani sacad loogu loo nisbeynaya macnaha reer bani sacad maadaama ay ahayd. marka xaliima sacdiya iyo islaamihii la socdaba kulligood way arkeen nabiga calayhi salaatu wasalaam, laakiin way ka leexdeen. waxayna uga leexanayaan maadaama uu yahay agoon oo isleeyihiin ayagana wax ugu muhiimsan ay rabaan waxaa waaye in maaragta xoogaa lagu dhaqaaleeyo ilmahaas. marka maadaama ay isleeyihiin aabihii ma noolo, awowihiis iyo hooyadiisna wax saas idinkuma dhaqaaleynayaan, ayay marka uga wada leexdeen, ilmo kale ka raadsadeen. islaamihii kale ilmo ay heleen, laakiin xaliimo ma aysan helin. markii dambe marka waxay istiri intaad adoo waxba helin iska noqon lahayd, yacni marka wiilkan iska qaado, odageedii la tashatay. marka wuxuu yidhi soo qaado, waxaa dhici karta ilaahi subxana watacaala inuu baraka nagu siiyo. marka way soo qaadatay. markay saa u soo qaadatayba maaragtay barakaad baa ilaahi subxana watacaala ay maaragtay u siiyey oo ay arkeen. runtii barakaadkaasna waxay ka mid tahay waxyaalaha ilaahi subxana watacaala nebiga u tahiyeynaya ama u diyaarinayay dadka in maaragtay qulubtooda kalgacayl ay jecel ilaahay ugu abuuro. maadaama uu agoon yahay, ilaahay kama dhigin agoon dayacan kama dhigin, oo mar kastaba asbaab iyo maaragtay dad buu ilaahay u diyaarinayay oo ricaayadeeya oo ka warqaba, dadkana qulubtooda jecel ayuu u gelinayay subxaanahu caza wajal. barakaadka marka waxaa ka mid ah macnaha xaliima markay soo socotay runtii waqti waxay yimaadeen abaarah. marka
yani iyado naasaheeda caano badan maysan lahayn, ribay wateen oo maaragtay iyada iyo odageeda ay maalin jireen oo maaragtay quud u ahayd, maaragtay iyadana caano badan ma aysan lahayn. Wiilkeedii markaa ay nuujinaysay, markii ay nuujiso yani caanaha kuma filno, marka aridaas caanaheedana kuma filna. Marka wiilkii habeenkii ma hurdi jirin gaajo darteed, habeenkii maaragtay oohin buu maaragtay hin jiray, ayaguna oohintiisa bay la soo jeedi jireen, hurdo la'aan bay ahaayeen. Marka saa markii nabiga calayhi salaam usoo qaadatayba oo ay bilowday inay nuujiso, waaba kanaa caanaheedii maaragtay yani naasaheeda caano badan baa ilaahay maaragtay dhigay oo waa uu ka dhargay nabiga calayhi salaam. Haddana wiilkii kale bay nuujisay, asagana waa u dhargay, labadoodii way hurdeen, ayakana way hurdeen maaragtay. Intaysan markaa seexanin, odaygii baa haddana damca inuu xoogaa maaragtay ridii soo maalo oo maaragtay wixii bal uu ka heli karo. Marka hore wax yar uu maaragtay ka filanay, waatana iyadoo maaragtay irmaano dahano maaragtay caano badan leh, caanihiiba maaragtay ka soo maalay oo keenay oo maaragtay ay ka dhargeen labadoodii. Habeenkii maaragtay bikhayri leyla ayay ku seexdeen, macnaha ayagoo maaragtay labadoodina dhargay, ilmahoodina ay u dhargeen, ayay maaragtay hurdeen. Markii ay safarkoodii sii aadeenna, soo socodkeedii hore markay imaanayeen waxay gaadiid u wadatay, dameer yar bay wadatay. Dameerkeedii marka wuxuu ahaa mid tabar yar oo aan socod fiicnayn ayuu ahaa, oo dadkii maanta oo dhan way ka haraysay oo waa la sugayay. Markaan wuxuu noqday mid maaragtay cajiib oo xoog leh, ordayay ilaa dadkii dhan ay dhaaftay oo ay leeyihiin war Xaliimoyna sug ay leeyihiin, oo haddana ay leeyihiin wareedhe dameerkaan soo midkii aad maalin dhowd ku timid maaha, hawa asagii. Waxay yidhahdeen maxaa iska bedelay, aad bay u yaabeen. Markii meeshii ay deganaayeen ay tageen, maaragtay xoolaheeda markii ay daaqsinka la geeyo la soo celiyo, waa kuwaan maaragtay cayilay oo maaragtay burburtay oo caano badan yeeshay oo cajaa'ib. Dadkii kalena maadaama waqti abaara lagu jiray, waxa waaye xoolahooda caano badan ma leh, ilaa ay yidhaahdaan maaragtay orda bal waxaad arig waxaad ilmaha ay ku leeyihiin, macnaha iyo qolada ariga u raacaysa ay ku leeyihiin, war ariga maaragtay u daaq geeye meesha maaragtay xoolaha Xaliimo ay daaqaan geeye bay leeyihiin, macnaha iyagoo isdhahaye meel fiican bay maaragtay daaq fiican bay Xaliimo xoolaheeda geysataa. Taasna ma ahane wax daaqu waa isku mid waa barakada, laanna waxa yar hadduu ilaahay subxaana watacaala barakeeyo way ka fiican yihiin wax badan oo aan barako lahayn, macnaha. Marka farqiga waa waxba ilaahay subxaana watacaala u barakeeyey. Marka nicmooyin iyo barwaaqo iyo barako ayay Xaliimo Sacdiye maaragtay ka heshay. Labadii sano markay dhammaatay ayay waxay u timid Aamina bintu Wahab, nabiga calayhi salaam hooyadiis. Marka waxay ka codsatay in xoogaa loo sii daayo wiilkii uu maaragtay waqti kale uu la sii joogo. Ay ugu sharxaysa leedahay waxaan uga baqayaa maaragtay cuduradii makaan uga baqayaa, marka maaragtay xoogaa soo wiilaha soo xoogaysto. Iyadoona marka hadaf kale ku jiro ah in maaragtay wiilkan xoogaa barakaadkan iyo khayrkan ay ka heshay, bay rabtaa inay u sii maaragtay waqti dheer kale u sii hesho. Markii xoogaa ay ku celcelisay, Aamina way ka ogolaatay, sidii marka ku ceshatay. Markuu 4 sano gaaray, asagoo markaa ku maqan xoolihii uu raacayay ku maqan, ayaa waxa u yimid 2 malag baa u timid oo mid ka mid ah Jibriil yahay calayhi salaam. Marka labadii malag laabtiisii ayay dilaaciyeen, qalbigiisa ayay nadiifiyeen, waxayna ka soo saareen wax yar oo ay ku tilmaameen inuu yahay xaddu shaytaan, inuu yahay waxay ku tilmaameen ayay ka soo saareen. Waa wax shaydaanka u sahlayay qalbiga inuu waswaasiyo oo beentiisa iyo wixiisa uu ku afuufo, wax u sahlaya waay. Marka waxaa looga hortagi karaa waa dikriga ilaahay baa looga gaashaaman karaa. Laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa maaragtay ka saaray oo ka fududeeyey oo maaragtay mas'uuliyaddan iyo arrintan weyn u istaagayay, yani ilaahay subxaana watacaala ugu diyaarinayay. Kadibna waa ay toleen oo saxaabadii qaar ka mid waxay sheegi jireen ridwaanullaahi calayhim in aahaartii toliinka xataa nabiga uu weynaaday oo marka ay ku arki jireen macna calayhi salaatu wasalaam. Markii arrintaa dhacday oo nabiga maaragtay dhulka la dhigay oo maaragtay laabtiisa la dilaaciyay, ilmihii way kala carareen, wixii meelaha ka dhawaa oo la socday waxay gaarsiiyeen meeshii, waxay yiraahdeen wiilkii waa la dilay bay yiraahdeen. Warkii markay maqashay Xaliimo Sacdiye way baqday, waxay istiri wiilkan markay timid inuu fiican yahay aragtay, waxay istiri maaragtay wiilkan inta agtaada intuu joogo dhib ku dhici lahaa maaragtay hooyadiis isaga celi. Marka hooyadiis u keentay, marka hooyadii way la yaabtay maadaama marka hore aad ugu dadaalaysay islaantan inay ceshata rabtay, haddana iyadii iska soo celisay. Markii ay weydiisay u sheegtay xogaa inay u baqday, marka ay tiri maaragtay
waxba ha u baqin maaragtay ilaahay subxaana watacaala ayaan magan geliyey wiilkayga markii u dhashayba macnaha ilaaha ku ilhaamiyey inay alla subxaana watacaala magan geliso ay tiraahdo uciiduka billah. nabiga hooyadiis aamina bint wahab markii uu 6 sano gaaray ayay waxay aaday maaragtay dhanka Yathrib ay aaday. marka waxa waaye iyadoo marka soo noqonaysa oo marka u soo socota ayay wadada ku geeriyootay, aad bay u xanuunsatay, kadibna wadada ku geeriyootay. marka meel la yiraahdo Al-Abwa ayay meeshaasi ku dhimatay oo lagu aasay. marka kadib waxaa la wareegay nabiga kafaaladiisa awowihiis Cabdilmutalib ayaa la wareegay oo runtii aad u tixgelin jiray, wanaajin jiray, maaragtay ka warqabi jiray. waxaa la sheegaa in Cabdilmutalib Kacbada agteeda uu maaragtay gogol loo dhigi jiray oo fadhiisan jiray. gogashaas wiilashiisa oo nabiga adeeradiisa looma ogolaan inay ku fadhiistaan gogasha gaarka ah ee Cabdilmutalib loo dhigay, geesaha ay ka fadhiisan jireen. laakiin nabiga calayhi salaam markuu yimaado isagoo yar uu fadhiisan jiray. markay damcaan inay ka kiciyaan Cabdilmutalib wuxuu dhihi jiray dhaafa in liwaladi hada la sha'nan, ayuu dhihi jiray wiilkaygan waa wiil dadka kale lamid maaha, sha'ni maaragtay gooni ayuu leeyahay ayuu dhihi jiray macnaha. marka asagana Cabdilmutalib 2 sano kadib waa uu dhintay oo sanadkii 8aad markuu nabiga 8 sano jiro calayhi salaatu wasalaam Cabdilmutalib waa uu geeriyooday. wuxuuna kala dardaarmay intuusan dhimanin uu ku wareejiyey Abi Taalib oo nabiga adeerkiis ah, uuna la dardaarmay gabayo xataa ayuu tiri baa la yiraahdaa oo kula hadlay Abi Taalib oo nabiga calayhi salaatu wasalaam kala dardaarmayo. marka Abi Taalib ayaa la wareegay. marka Abi Taalib ayuu la joogay oo la noolaa. markuu 12 sano gaaray ayaa waxa dhacday inuu safar Abi Taalib u raacay oo marka safar ganacsi Abi Taalib u socday ayuu maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam raacay. Shaam ayay u socdeen. markii marka wadada sii marayaan oo magaalada Busra la yiraahdo ay sii marayaan ayaa waxaa la kulmay nin raahib ah oo la oran jiray Baxiira ar-Raahib. marka ninka raahibka ah agtiisa ay soo degeen qoladii safarka ahaa, safarkii ganacsiga. marka uu u soo baxay sida caadada ahaydna muusan u soo bixi jirin. marka inuu soo baxay waxaa sababtay kor buu ka daawanayay. marka wuxuu arkay calaamado cajiiba ayuu ku arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam. calaamadaha marka waxa waaye marka ugu horeyso macnaha dadkan markii ay degeen maadaama uu nabigu ugu yaryahay wiilka ugu yar oo la socdo uu yahay, asagay uga tageen inuu alaabta inta dhiman isku sii toosiyo oo macnaha wixii sii xirxiro ayay uga tageen. ayagana geed hoostiisay fariisteen. marka inta uu shaqada wado wuxuu arkayaa Baxiira wiilkan yar inay daruur asaga kor taagan tahay oo meesha u dhaqaaqaba ay ula dhaqaaqayso oo ay maaragtay har siinayso macnaha. wuxuu kaloo arkaa markuu dhaqaaqa uu geed soo agmaraba geedkii inuu maaragtay dhankiisa soo jaleecanayo macnaha. dhagax hadduu soo agmaraba dhagaxii inuu dhankiisa soo jaleecanayo ayuu macnaha arkay. wuxuu kaloo arkay markii uu soo dhammaystay shaqadiisa wuxuu soo aaday inuu meeshii raggii ay fadhiyeen soo fadhiisto. meeshii raggii marka waxay sameeyeen maadaama harka iyaga ay badnaayeen way fariisteen oo harkii ka buuxsamay. meeshii harka lahayd geedka qaybtiisa harka lahayd buuxsantay. marka meesha aan harka lahayn ayuu iska fadhiisto intii meeshii banaanayd. meeshii markuu fadhiistay harkii dhankiisa u soo wareegay. intaa markuu arkay aad buu runtii ula yaabay. wuu soo degtay kadibna maaragtay aad buu ugu maaragtay fiiriyey, ugu maaragtay kuur galay. kadibna gacantuu ka qabtay wuxuu yiri kani waa sayidul caalamiin, kani maaragtay ilaahay subxaana watacaala soo diray oo nebi ummadda dhan loo soo diray weeye ayuu yiri. marka Abi Taalib baa la hadlay maxaa warkaan intee ka keentay? markaas wuxuu yiri calaamadii warka u sheegay. wuxuu kaloo ku yiri waxaan ku garanaynaa calaamad kale oo labadiisa garbood dhexdooda ku taalo dhanka garabka bidix xigta oo maaragtay maxay ahayd khaatam nubuwa la yiraahdo, macna calaamad yar oo garabka bidix hoostiisa ku tiil. marka oo kutubtoodan ay ku garanayeen. marka sidii intii markuu u sheegeen wuxuu ugu daray wuxuu yiri wiilkan waxaan ku talinayaa inaadan Shaam geynin oo aad u celisid maaragtay Maka inaad u celisid ayuu maaragtay kula taliyay. wuxuu yiri waxaan uga baqayaa yahuudda Shaam joogta uga baqayaa. marka sidii marka safarkii muusan dhamaysanin Maka ayaa loo soo celiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam. halka ayaan ku ekeysanaynaa xalaqadeennii 5aad. intaa xalaqa kale kaga kulmayno waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.